bulshooyinka Somaliland iyo taageerayaasha axsaabta mucaaradka ahba waxaan u sheegayaa uu dhamaaday waqtigii madaxweynaha aad doorateen ee dastuuriga ahaa wuu ka baxay heshiiskii bulshada ee dastuurku jideeyay guud ahaan waxaan ugu baaqaynaa nabad isku duubni iyo inay ilaashadaan nabadgelyadooda wixii sharci darro ahna diida oo cidna keligii talisnimo ha ka aqbalina xisbiyada mucaaradka ah waxay ugu baaqayaan ciidamada qalabka sida iyo hay'adaha amniga inay u hoggaansamaan dastuurka qaranka oo keliya si waafaqsan qodobka 123 faqradiisa koowaad ayna ka digtoonaadaan qaadashada awaamiirta aan sharciga waafaqsanayn xisbiyada mucaaradka ahi waxay ku wargelinayaan taageerayaashooda in hoggaanka iyo saraakiisha xisbiyadu si dhow la socon doonaan xaaladda waddanku marayo isla markaana si joogto ah u soo wargelin doonaan ulana socodsiin doonaan taageerayaasha tallaabooyinka xiga ee aynu qaadi doonno marxaladda cusub ee dalku galay wixii ka dhasha mas'uuliyaddeeda waxa iska leh madaxweynaha muddo xileedkiisu dhammaaday waan ka xumahay in Somaliland dhiiga loo huray loo gaajooday 30 sano adduunkan ka xidhneen inagu isku tashanay magac ku helay dadkeenu inagu taageersanaayeen ku midaysneen inaynu himiladeena gaadhno oo adduunka halkan kaga jirnay 60kii ahayd waddan madax bannaan oo calankiisa helay ee laynagu majiirtay dumaraadiyanu sameynay isku kalsoonidan sameynay tanaasulka iyo wada hadallada aanay shisheeye ku jireen gamcaheena aan Somaliland dambas ka soo saarnay oon dalka dhignay ee adduunka inagu majiirtay inay caawa aan ka dayriyo aad iyo aad baan uga xumahay Somaliland Soomaali oo dhan gaashaanka ugu dhigay cadowgeen oo dhan in maanta gudaheeni dad aan u naxin waliba maanta maalinta ugu liidatay ahayd ee biyo la'aanta abaarta xanuunka dhaqaale xumaanta cadowgeena alawsan intaasoo maanta inagu wareersan tahay aan madaxweynaheeni ka weynay sharciga ilaali sunnahaynu ku noqon ku soo noqo waan ka xumay horta marka hore waxaan leeyahay shacabka reer Somaliland raalli naga ahaada anagoo biyadin siin caafimaad siin waxbarasho siin layr siin rajo ku nooleedeen in maanta layna daawado ilaa Somaliland suuga way qarxisaay horta qarxi mayna insha Allah taala xumaan ma wadno wanaag ma wadnaa nabadna waa ku seexanaysaa insha Allah taala nabadna waa ku soo toosaan laakiin sida caawa cadaatay maaha labada xusbi qaran inay ku mucaarad yihiin madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland iyo xusbigiisa waxay ku mucaarad yihiin qaranka Somaliland oo caawa ay ka dhigaan inaanu ninaba xukumin inaanu qaran jira ahayn inaanay dawlad jirin in maxaan ku raahday cidda dalka xukunta la garanaynin marka dawladdu jirto taliyaha biliska imika halkan ka hadlayay sharciga waxa ilaalinaya ciidamadeena qalabka sida ee National Security Institutionska ayaa ilaalinaya waxa ilaalinaya xukuumadda markaa talada haysa ilaalinaysa arrinka waxa kaloo maxaan ku raahday hadda imika jira in hadda iminkaba caawadanba saacadihi ay hadleen ee hadalka dhameeyeen in la abaabulayo kacdoon dadweyne
oo laga abaabulayo taageerayaashii labada xusbi in iyaga iyo biliiska hadda meelaha qaarkood ay isku hor joogaan arrintaa waxaan bulshada reer somaliland u sheegayaa colaad in ku filanna waynu soo marnay qasaska gobolladan aynu ka midka nahay hareeraheenna ka socdana waynu garanaynaa kuwaynu dowlad soomaaliyeed isku ahaan jirnay aynu walaalaha ahayn ayaan darrada haysatay iyo dhibaatada haysta waynu garanaynaa dadweynaha reer somaliland ee nabadgelyada jecel ee horumarka sameeyey waxaa kaloo sheegayaa qof kasta oo khalkhal gala wuxuu doonaha aado khalkhal amni sameeya amni darro ku dhaca booliska way ishelayaan gacantana way ku qabanayaan xilku doonaha hayo mas-uuliyaddu doonaha hayo noocu doonaha ahaado shuruucda dalkaa ka sarraysa amnigaa shay walba ugu horreeya booliskuna taasuu ilaaliya boolisku wuu qaban doona cadaaladii maxkamaddana wuu horgeynay ugu dambayn dadweynaha oo qodobka igu dambeeya waxaan kula dardaarmayaa dadweynuhu waa inay amniga ka shaqeeyaan ciidamada amnigana isgarab taagaan asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu